الحمد لله الصلاة والسلام على حبيب الله ورسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. أدبر ما سنتهي أستاذ عبد الرزاق جزاكم الله خيرا. إياك. وحويان ولالكي دقال كان إنه قرح لقى يعبو ولي أندين هدفك وكلي هي إن دولة أمريكا وكدوي هي هدفك دقالك لبيه طمك عشاء إسرائيلي iyo Iran oo Mareykanku markii ku dambeysay uu soo firgashay aad buu uga duwan yahay wuxuuna uga duwan yahay hadafkaas wuxuu ahaa waxay loo bixiyay in la tirtiro hubka adag ay dawladda Iran haysato laakiin maanta Mareykanku wuxuu soo bandhigay afar hadaf oo waaweyn inuu ka leeyahay dagaalkan hadafka koowaad waxa weeyaan isqaad nidaam inuu nidaamku la burburiyo oo dhaco sidoo nidaamku dhacaya iyadoo waa su'aal kale weeyaan laakiin nidaamku waa inuu dhaco hadaf la dhigay hadafka labaad waxa weeye in la burburiyo nidaamka nuclear-ka ee dalka maxaan ku dhahdaa Iran burburku kama dhigno inay joojiso ma waa inuu burburaba si ay dib dambe u bilaabi karin midda labaadina waa middaas weeyaan midda saddexaad waxa weeye sawaariikhdan adag ay dawladda Iran ay samaysatay oo la yiraahdo sawaariikhda ballistic la yiraahdo meel fogna gaaraya oo imikana aad u tatawuray oo Shiinaha iyo Ruushku ay kala shaqeeyeen iyo Korea in iyagana la tirtiro oo la soo gaabiyo awoodooda xagga ay ka yihiin awood weerar waa in noqdaan awood difaac lagu soo cesho arinta afraad ugu dambeysay waxa weeye in la tirtiro ama ay joojiso Iran gargaarka ay siinayso dadka loo yaqaan wakiiladeeda u fadhiya mandiqada bariga dhexe waliba waxa si gaar ah loo xusay Iraq iyo dalka Lebanon marka afartaas hadaf baa laga leeyahay laakiin afarta hadafi isku ma aha meel ma wada taagno hadafka istiraatiijiga oo aan oran karno waa istiraatiijiyatul quswa waa hadafka hadafyada waa in nidaamka la rido marka si loo rido nidaamka waxay soo bandhigeen in la dilo ninka la yiraahdo Khamenei Ayatollah Khamenei oo imaamkooda la dilo bulshadku haddii ninka lagu guuleystay in la dilo waxay iyagu aaminsan yihiin sidii in Venezuela in wadanku dadka hoose ay Mareykanka la shaqeyn doonaan markaasi taasi bay iyagu aaminsan yihiin amba se waxay aaminsan yihiin in la laayo madaxda waaweyn ee systemka haysa nin walba meesha uu joogo loogu tago oo la dilo marka hadafku waa burburka nidaamka marka hadafka uu dawladda Mareykanka dagaalka maanta ay ka leedahay waa in la burburiyo weeyaan hadafkaasi waxa hoos socda hadaf Israa'iil leedahay Israa'iil hadafka ay leedahay waxa weeyaan waa hadaf murakkaba oo isdul yaala إسرائيل هدفكيه هو إن دولة إيران لما حيفيو بحيث أي يلون ويدا إيطال أي كورتي كرتو دولة إسرائيل واتاي لكن سي أي إسرائيل وتفرغ تركيا إسرائيل هدفكيه معها إيران وين تركيا وها شف فرصة أي تركيا يسوي اسكوي مادين كدبنا أي أتفرغ السعودية iyada markaasi waa inay abuurto tii u bixisay bariga dhexe ee jadiidkii cusub markaas saas bay isku saaran yihiin labada hadaf ee Mareykanka iyo Israa'iil waa ahdaaf istiraatiiji ah oo isdhameystiraya inta badan u khidmeynaya maslaxada Israa'iil hadaba sheekhi in maamul la rido oo xukun jira dhulka la dhigo ma sahlana qoraal isugu dayay wala dhigi kara laakiin waxa laga yaabaa waxa laga filayay inuu ka soo bixin Iraq oo kale way rideen laakiin maamulka ka soo baxay waa hadda mid Israa'iil Iran taageersan baa noqday waxa la riday kii Libiya waxa ka soo baxay xukuumado kale si la rabayna laga gaarin kuwa badan Suuriya kamid ah maamulada la riday marka say suurtagal u tahay in hadafkaas la xaqiijiyo in la rido aba laga adkaado nidaamka Iran waxa weeyaan waa nidaam adag tahay صدح أما أفر صبود وهوين بيان ماشي oo halis ah oo ay ka duwan tahay Mareykanka isaga khaasatan ninka la yiraahdo Trump waxa hor yaala
waxbuu ku guuleystay wuxuu ku guuleystay Venezuela ninkii madaxweynaha buu soo qaaday muddo 30-40 minuut ku soo dhameeyay dawladdii hoose ee ninkan la shaqeynaysay baa is dhiibto isaga la shaqeynaysa marka isagu wuxuu haystaa namuudaj buu haystaa model mithaal oo Latin America ka dhax kan baan ku dabaqaynaa Iran buu leeyahay laakiin wuxuunan arkayn farqiga weyn oo Pentagonka iyo reer galbeedka iyo dadka waaweyn ee wax odrasa ay u sheegeen ay ku yiraahdeen war tani tal lamid ma aha soo gaartay ma Iran marka ku soo noqotay akhi maartay ustaad maartay Abdulrazaq Iran waxay kaga duwan tahay dalalka kaleeto Iran horta waa dawlad waxaan weli afar arrimood waa weyn ka duwan tahay mid ka ceel horta Iran waa dawlad ka culus oo ka weyn Venezuela صح maxay kaga culus tahay kaga weyn tahay horta Iran waa dawlad bariga dhex ku taala buuraley ku taala meel adag ku taala system la dhisay 40 sano haysata oo la dhado systemka islaamiga ee shiicada ee Jacfariga oo dadka oo dhan ma wada aha nidaamka laakiin ugu yaraan 9 milyan ee shacbiga Iran ka kooban yahay 10 milyan ba ku qanacsan barnaamijkan oo u awala oo barnaamijkan uu yahay diin iyo fikir uu yahay waa lambar culus weeyaan midaas marka laga dhaqaaqo weynida dhulka iyo dadka aaminsan fikirkan marka laga dhaqaaqo waa problem adag weeyaan problemka labaad waxa weeyaan Iran dawlad basiita ma aha oo qof ka taliyo Iran waxa ka taliya institutionno iska soo horjeeda is ilaaliya wada socda waxa diraaso u baahan cilmi weeyaan maxaa kamid ah waxa jira maktab la dhado xafiiska murshidka sare ee Iran xukuma kaasi waxa yaala haddaad dishid imika matalan Ayatollah Ali al-Khamenei haddaad dishid waxaa la doortay ilaa 7 nin oo kale oo isaga bedelaya oo ka mid yahay inankiisu oo isaga ka adag haddii uu geeriyoodo ama la dilo replacement-igi meeshuu joogaa uu jooga 7 nin baa la diyaariyay oo isdaba yaala succession-ka waxaa ka mid ah inankiisa ka mid ah wadaadka oo marka diintana sidiisa u yaqaana kana adag adayga ka adag waxaa jooga kuwo isaga ka soo horjeeda laakiin ka visionary oo wadanka inay qabtaan laga yaabo marka 7 nin baa kala diyaariyay xafiiskaasi waa xafiiska Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran xakumo sidiisu u fadhiya isagu waa xafiiska qaraarka ugu dambeeya leh waxaa jira madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda la dhahdo labada nin waa laba nin oo bidix ah midig ma aha ma adko waana dadku isku halaynayo ninka la dhahdo Trump wali hadda iyagu soo hadaan iyaga sheekadooda waa suurtagal weeyaan waxaa jira majliska ilaalinta dastuurka oo ka shaqeeya dawladda ilaaliya marka majliskaasina waa majlis adag waxa kaloo jira golaha shuurada oo baarlamaanka la mid ah waxaa jira majlis raado khubaraa ul-qiyaada khabiirada dawladda oo isaguna meel fadhiya waxaa jira ciidanka waxaa jira security-ga amniga waxaa jira xarasu sawriga oo qolada ugu khatarsanaa intaas oo dhani waa inaad la heshiisid si aad u samaysid wadanka inaad qaban kartid intoodana awooday leeyihiin ciidamana way leeyihiin waa wada awoodo wada socota is ilaaliyana isku afkaarna ma aha laakiin waxay ka midaysan yihiin Iran awalan waxay ka midaysan yihiin ashiicatu awalan waxay ka midaysan yihiin fikratu Khomeini awalan thawra saddex shay laakiin waxa kale oo isku khilaafsan waa tahay marka haddaad murshidka dishid kan waa la mid kan kale waa la mid wax u dhaxeeya ma jiro marka adiga waa inaad fahamtid dawladdan inay ahayn dawlad caadi ma aha marka taas waa mid labaad keenaysa inay adag tahay in la rido mid saddexaad jirto in adag in la rido waxa weyn maxaa ka dhalanaya hadii la rido arinta ka dhalanaysa waxa weeyaan in uu dagaalku daba dheeraado oo ka baxo gobolka sidoo yiri odayga Khamenei dagaal haduu dhaco mandiqada dhan bas qabsanaysa waxaa la yiri maaldowta daraasad la sameeyay Sacuudiga qarxaya kuwida qarxaysa waxa qarxaysa Imaaraadka qarxaya shiicada mandiqada dhan ba kacaya
marka dhibaato weyn baa badaqada ka dhaxay doonta arintaas waa arin muhiim arinta afraad oo nidaamka la ridi karaa u diidan in la rido waxaa ka mid ah nidaamku wuxuu samaystay wax la yidhaahdo shabakad uu ka samaystay gobolada wadanka oo dhan iqliimka oo dhan oo meel kas degan yahay wuxuu degan yahay iminka Israa'iil aad bay u weerartaa Libnaan bariyaan lianna waxaa la og yahay in haddii Iiraan la weeraro Libnaan amar lagu siiyey marka Iiraan la weeraro dagaalka bilow Israa'iil ka bilow marka iyagu way sabraysaa sabr istiraatiiji waxa dhacday ma dhaqaaqaan garaaca way iska qabalay yamtasuun way nuugayaan laakiin waxay sugayaan marka Iiraan lagu qaado marka waxaa halis geli doona waxyaalooyin fara badan oo ka sheekeyn doona caawa oo mandiqada dhan ka dhacay marka ma fududo in dowladda Iiraan la rido ama la baabi'iyo waa tahay Mareykanka iyo hadda Mareykanka Israa'iilna way ka horeysay labaduba waxay aad ugu haleelayaan maamulka ka jira Iiraan in ay ridaan Iiraan dowlad ahaan iyo shacab ahaan ba isku wada dar awoodaheedana maxay yihiin meelahay kullidatana maxay tahay oo la doonayo in laga faa'iideysto Iiraan maxay leedahay awoodo niqaad quwa maxay leedahay niqaad quwa iyo dan quwadda sheegna waxa weeyaan Iiraan waxay leedahay xagga muassasaadka ka dhisan tahay sitishino waxay leedahay adag oo quwad weeyaan Iiraan waxay leedahay system qura ay ka wada dambeeyaan iyada waa quwadeeda weeyaan Iiraan waxay leedahay ciidan dhisan oo lagu qadaro ciidanka 6 7 8 khilaaf baa ka jira qaar 8 badigaan adduunka weeyaan adduunka dhan 7 wala gaarsiya 6 wala soo gaarsiya marka waa ciidan awood badan leh ay leedahay Iiraan waxay leedahay dhaqaale iyadoo cunaqabad ku jirta dhaqaale daatiye leedahay laba meelood Iiraan way ka dhisan tahay xagga cuntada la cunayo iyada soo saarata iyo dawada labada dibad way maadeen ilaa dawooyinka ka sarreeya samaysaa marka Iiraan labada way ka dhisan tahay marka Iiraan awooddaasay leedahay oo niqaadul quwa waxa kamid waxay leedahay wakiilo u fadhiya wadanada kale Iraq Yemen Libnaan Suuriya waxa la sheegay in laga burburiyo laakiin waxa la soo ogaaday dagaalka nimanka qasdi lagu qaaday ma aha wax kale waxa la ogaaday in Iiraan u fadhiyaan dad wali hadaas oo hubkii la geeyo ilaa Libnaan Suuriya wali siba u fadhidaa waxay fadhidaa maxaan ku dhahdaa Yemen Iraq iyo maaragtay Libnaan Palestina qolada al-jihaad la yiraahdo iyo aad u leeyihiin xiriir aanan caadi ahayn marka taasina waa awoodihiga ka mid ah waxa awoodeeda kale ka mid ah in ay leedahay fikir ay adduunka ka gado intaas waa niqaadul quwa niqaadu dacfiga daanayman Iiraan niqaadkiga dacfiga afar ku soo ururayaan lambar 1 waxa ka Iiraan niqaad dacfigeega cunaqabataynta dheer ee lagu hayaa 40 sanadood oo u diiday oo lacagteedii ka dhigay doolarkii inuu ilaa $2 milyan oo riyaal u noqdo يعني lacagtoodu waxay noqotay salaatii shilinkeena xanshiba iska noqotay waxa macna lahayn marka waa cunaqabatayn aan غير caadi ah lagu hayaa waxa imika la cunaqabateeyaa qofka Iiraan wax ka gata yaa isaga la sii cunaqabateeyaa marka Iiraan waxay noqotay dawlad lamida oo Kuuriyada waqooyi marka taasi waa mid kooda waa cunaqabataynta waa dacfiga arinta kale ee dacfiga ay leedahay waxa weeyaan inayna lahayn asxaab waaweyn adduunka imika asxaab soo ilaalisa marka Mareykanka uu qooqiisu badatay laakiin dacfu sadaqa ma leh xulafa dawliya amba bandiqada xulafa kuma leh waaweyn oo dawladda waxay leedahay maxaan ku raahdaa in xulafa waxay leedahay dhinaca hadaan soo qaadano ururada laakiin dawladda ma leh waa dacfi halkaas waxa kale oo dacfiya oo Iiraan ay leedahay waxa weeyaan khilaafaadka gudaha oo hadduu 10 baa ku sheegay 9 milyan weeyaan boqolkiiba 16 waa furs dadka iyagu waxay gaarsiiyaan Iiraaniintu boqolkiiba 30 laakiin runta ahaanta waa boqolkiiba 16 waxa kale oo waa shucuub kale Balochistan iyo Arab iyo Kurdi iyo maxaan ku dhahdaa Azerbaijan adari waxaas oo dhan ka buuxa waxaas oo dhan waxay aaminsan yihiin in la dulmo marka marxalad sugayaan oo dacfi ijtimaaci iyo bulshada weeyaan waxyaalaha kale ay leedahay dawladda Iiraan waxa kamid ah dacfiga taageeraya waxa weeyaan inay hubka ay cirka
وضعيف جدا inkastoo imika hub loo keenay waa waqti degdeg laakiin samadeedu waa faaruq iska furantahay ma difaacan karto waxa kaleeto oo ضعfi lagu sheegaa التغلغل الصهيوني والامريكي في الداخل si fiican gudaha loogu jiraa sirdoonka inkastoo imika aad u safeeyeen laakiin hadda waa la joogaa marka intaas oran lahaa waa tahay ma laga yaabaa maamulka oo meesha aad ugu raagay nidaamkan hadda maaragtay xukunka qabsaday inkastoo madaxweynayaal iyo kala duwan ay maadaama doorashooyin ay qabtaan laakiin haddana hal nidaam baa meesha ka taliya weli taasi ma noqon kartaa dadka inay ka daaleen sistemka dad baa ka soo horjeeda xoog badan horta dowladda Iiraan markay abuurmaysay jamhuuriyadda islaamiga abuurmaysay tawradda islaamiga dhada mugta oo Khamenei baa hogaaminayay arrintu saas ma aha arrintu waxa weeyaan shacbiga kacay arrinta darsi weyn baa ku jira mugta shacbi weynaha kacay shacbigu markuu kacay waxa hogaaminayay 5 qolo qodob wadaadadu qayb bay hayeen waxa ku jira shuuciyiin iyo ishtiraakiyiin waxa ku jira cilmaaniyiin waxa ku jira qowmiyiin waxa ku jira dad musaqafiina oo intellectual ah intaas oo dhan baa hogaaminaysay thawradaha laakiin intaas waxa ugu tandiimsanaa 2 qolo qolada ishtiraakiyiinta ee shuuciyada ah iyo qolada wadaadada waxay ahayd qolada u badisa ayaa dawladda qabsanaysay almubaadara wadaadada baa badiyay marka wadaadada baa badiyay ayatollah Khomeini baa ka badiyay marka madaxweynayaashii ugu horeeyay ma inay ahayn wadaado waxay ahayd dad caadi ah laakiin markii la socon kari waayeen Khomeini waa kii Khomeini dastuurka markii doodu ay socotay 2 sano iyo keenay dastuurka nimika lagu dhaqmo oo ay ku jirto wax dhado wilaayatul faqih ya wilaayatu الفقيه marka waana isagu walaad fiqh oo daraas u baahaya maxaa soo hawo keenay waa cilmi shiicada ku saabsan aniga marka waxay la tahay in dawladan maxaarada Iiraan sameynteedu waxay ahayd mubaadarada shiicadu ay wadaadadu ay ku badiyeen وانا درسي ذاتك صومالي 10 ugu jirto صاحب المبادرة الأولى هو الذي يرسم قواعد السياسة قفك مبادرة ugu horeeya la yimaada ayaa qawaacida siyaasiga dhiga marka la ciyaaraya maartay shadranjiga hada afka ingiriiska anoo ingiriiska baashan jid sheek baan ku shadranjiga marka la ciyaarayo waxay u baahan tahay mubaadaraad iyo maskax labadaas in la isticmaalo waana taay fuqahada qaarkood ogolaadeen inay qiyaadadu ciyaari karaan inay xalaal tahay wajaaska Salaahuddin baa adu ciyaari jiray rahimahullah marka muxuu sameeyeen marka waa la dhigay anigu waxaan isdhaahdaa islaamiyiinta Soomaalidu sagaashanadii wixii markii dawladda Soomaaliya ay dhaxday waxay lahaayeen mubaadaraad aba aqal daraado wadada jihada ka galiyaan amba kuwa kaleeto oo caadi ah maxaakiimta kale mubaadaraad bay marka mubaadaraad bay lahaayeen keensanaysay inay dadka maamulaan kuwa aan mubaadaraadka haysana inay iyaga la socdaan markii dambe mubaadaraadkii ay ka joogsadeen waxay noqotay mubaadaraadkii kuwa kala qaatay ambase iyakiina waxay qaateen fiqhul intidaar marka taas uu ku guuleystay wadaadka Khomeini wuxuu kaga badiyay waxay mubaadaradii buqaatay ma uuna suuy mubadaradu wax weeyaan waa talaabada hore qofka qaada kiba waa talaabo qaaday talaabada hore qofka qaada ayaa dhigaya xeerasha siyaasadda ee lagu soconayo hadeeto hada talaabada qaadi weydid waxaad qaadaya waxa dhada nature waxa dabeecadu ma ogolo faraaq أنه وحي فارق هذا ما جريته ولذلك واحد هذا سياستنا ما أقوله إنه فارق جرو وأنا قف بحيا ماشي أنا قف بحيا يعني أما النظام بحيا ولذلك محوك قد ويا هي ترامب سياسيين تمريكا كذا وقد ويا ومبادراتك مبادرات أم عقلها كجرا من عقلها كجرا صاحب مبادرات السقوط تيهور الله كشف فكرة من كان يا تذكر من الله بصد حد مكانها تذكر توافرت مكانها تذكر ولا ريبه meel ay u dhaqaaqaan adduunyada iyo caalamka iyo meel walba mubaadaraad buu ku wareeriyay marka qofka hadduu dadka bila mubaadaraadkii maxay ku jiraan war muxuu soo wadaa caawa qaar baa seexanaya beris waxa soo kacay 2 mubaadaro soo kacay marka waa taas oo kale okay waa tahay shaqi marka
maraykanka fadal wuxuu doonayaa in uu guul degdeg ah uu ka gaaro sida Venezuela oo kale asoo isku haleynaya dad uu leeyahay macnaha way ka soo horjeedaan maamulka meesha jira marka maamulka inta sare aan ka takhalusno nidaam cusub oo anagana taageersan baa imanaya marka ma la isbarbardhigi karaa Venezuela iyo Iran horta maraykanku wuxuu leeyahay saddex iskool aad buu u baahnaay iskuul waxa la madrasatu radci oo macnaheedu madrasatu radci okay iskuul waxa la madrasatu istishraaf iskuul waxa la madrasatu waaqi'iyya saddexda madrasadood oo wada shaqeynaya ayaa soo bandhigaya barnaamijka Iran laga hortagayo iskuulka la dhado radci waa maxay waxa la soo diray maraakiibtii ugu weynaa Ibrahim Lincoln mudamiraadkii wax duminayay waxa la soo diray diyaarado waxa la soo diray hub culus boqolkiiba 60 waxa laga yaabaa inuu dagaal dhici waayo amba 70 amba dagaal yar fudud inuu dhaco laakiin waxaan oo huba muxuu u keenay abuuritaan la abuurayo argagax cabsiin wali ka sar argagax abuuro argagaxi ma abuurmay mise ma abuurmin oo abuurmay halkeen ka arkayna inuu abuurmay sacuudigii baa cabsaday qatar cabsatay imaaraadkii baa cabsaday turkiga baa cabsaday sacuudigii wuxuu yiri aniga wadankayga lagama weeraray la hawa wala dhul imaaraadkana saas yiri qatarna saas ay tiri turkiga saas yiri labo talaabe wada qaadeen boqorka dhaxal sugu wuxuu la hadlay madaxweynaha saacad in ku dhow madaxweynaha Iran wali awal marra inta la isla hadlo boqorka qatar wasiirka arrimaha dibadda ayaa booqasho ku tagay Iran wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Iran baa Turkiga tagay imaaraadka waa la isla hadlay waxaas oo dhan shaqo Mareykan way la hadleen si dhabayna wala hadleen dagaal ma rabno من سوغاريا هداد ردعي واحد كان isagoo markaa wuxuu markaa ka yiri waxaad ka soo qaadaan ogolaasho in uu soo fariisto miiska isagoo ogolaanaya afartii hadaf inuu faraha ka qaado dagaalkan iska dhaafayna marka dirada falsafa jirto waa theory ta kale madrasa istishraafiyya istishraafku waxa weeyaan ma bacda النظام الإيراني bal arkaya lagama hadlayo Iran oo iminka jirta waxa laga hadlayaa Iran oo la burburiyay si ay ka doonto bariga dhexe waa la qorayaa waxa leeyahay Iran waxaan ku burinaa saddex dariiq bal marayna dariiq ah si nabada anagoo adeegsanayna argagax iyo cabsi waxa maya si dagaal oo dagaal adag in la galo maya mid saddexaad si dhaqaala marka aan nidaamka Iran ka takhalusno ma bacda النظام الإيراني bal arkayna sida uu bariga dhexe weekaanayo annagoo u danaynayna Israa'iil taasina waa mid labaad المدرسة الواقعية ومدرسة دي كيسنجر ويان واسكول كيسنجر من الرياليستيك واقع على هلا كلية هي وار إيران ما بربرين كرنو كمان أتكان كرنو خسارة وين بانو جاي منو كي أفغانستان كحون يكي العراق بكحون معايا الله معايا لنا نظام كان له شيء كذا كفرنا يا gudaha yaa ka furfurayna aayar 10 sano qaato 5 sano qaato degdeg naga daaya waan هذا هو المدرسة الواقعية لكن إمكان مريكانka waxa yaala madrasada radci waxay leedahay dagaalka waxaan ku qaadaynaa laba shay waxaan ku qaadaynaa sariican xaasiman degdeg baan u galaynaa waan goynaynaa wixii inay qaadanin 4 saac wax ka badan maalin arintu waa inay ku dhamaato okay maxaan sameeynaa markaa waxaan sameynaynaa waxaa la diyaariyey dadkii dowladda qabanayay oo ciidamada iyo laga leeyahay iyo xaraska ilaalada sawirada laga ilaaliyo yaa laga leeyahay kuwaasaan ku bedelaynaa nidaamka waan haynaaba laakiin waa inaan nidaamka dumino isaga si degdegana dowladda islaamiga ma ridayno laakiin waxaan abuuraynaa dowlad islaamiga oo Iiraaniya oo nala shaqeyso oonan cadow Israa'iil ku noqon marka taas baan ka shaqeynaa radcigu saas ay leeyihiin
laakiin waxay leeyihiin culimada u aqoon badan arrintan oo waaqiciyada ku jirta waxay leeyihiin hada laa yumkin arrintaasi meeshan kama suurtagalayso waxaan uga suurtagelin wixii aan soo sheegnay ahayd inay meeshan is ilaalinayaan institutionno badan baa jira waxaas oo dhanna ma heli karayno mana suurtagalayno inaan dili karno odayga haddii meel hoose la geyn doonaa hubku imika la dhigay markaasi waxay leeyihiin arrintaasi macquul maaha markaa saddexdaa iskuul ayaa ka shaqaynaya inkastoo la dejiyey 10 mashruuc oo loo bixiyey 10ka mashruuc ah ishqaalu iiraan can iiraan shaqaa lagu jira isku mashquuliyada in iiraan laga mashquuliyo iiraan oo ciyaalkii imka soo baxay ka mid ahaa marka waa lagu fashilmatay way socon weydeen haddana waxaa laleeyahay wadaaddo waxaa jira bidaxa oo dowladdana ka horjeeda oo leh yaa annaka maxaa naga galay falastiin iyo libnaan iyo horta iiraan awalan iiraan ha dhisano dalkeennii baa gaajoonaya dhibaataan haysata islaamka sa muslimiinta kale uga fikiraynaa laakiin khali nakun waaqiciyeen khaatami madrasadii khaatami baa shaqaynaysa iyo rafsanjani iyo kuwa iyaguna shaqadoodii wata oo qaar badan guriga lagu ilaaliya oo guriga kama soo baxaan si aan fikirka loo maqal waxaa loo diidan yahay in dadka kale saameyn ku yeeshaan marka waxaasoo dhan baa jira marka suurtagal maaha laakiin marka xaqiiqadu degdeg kuma dhammaan karaysa arrinta iiraan saddexda madraso ama aragti hadda sheegtay soo dhammaantood kama hor imanayaan aragtidii Trump lagu doortay ahayd America first inuu dagaalo dambe oo foreign mar dambe uusan geli doonin xaqiiqada wax yaab leh wax weeyaan nin baa qoray al-istisnaa'iyya al-israa'iliya Israa'iil waa exceptional wuxuu uga jeedaa Mareykanka 2025 iminka naga dhamaaday baa la dejiyay istaraatiijiyadda difaaca ee Mareykanka 4 sano soo socota waxaa la Mareykanku wuxuu ilaalinayaa qaaradda Amerika saadaradeed buu jasiiradan la isku haystay maahaydeen Greenland u soo qaadanaya halkaana wuxuu dhigaya wuxuu u bixiyay alqubba dahabiya baasha difaaca ee dahabiga tani Israa'iil ta la xadiidii u bixiyay xadiid baad tukaweyn buu dhigaya marka wuxuu leeyahay hadeeto ninkii igu yimaada qaaradda Amerika waa la dagaalamaya waa la soo oranaya cadowga koobaad ee leenana waa Shiina weeyaan su'aal baa la isweydiiyay wuxuu Iiraan ka rabaa hadii saatahay waxaa Iiraan wuxuu ka rabaa dawlad la yiraahdo jirta dawlad Israa'iil la dhahdo oo systemka Amerika loo yaqaano الدولة الاستثنائية دولة exceptional ka إلا إلالينا أي واجب تاعي لما شيء مركا هدف مريكا ويالا هدف كوباد وحويان إن عدوغا أي لا هي دولة إسرائيل لما أنتوا عكت اللاس كانوا أنت وترمجوا وهدف بيان هدف كلا بعد وحويان إن لو وريجي مفاتيح ده هجان كبرجة إسرائيل أو مريكا يقرب ويفرق هذا مكان oo dawladaha laga yiraahdo okay ana awali daba socdo Soomaa Israa'iil daba socdo Israa'iil waa inay dareemin wax tahdiid ama خلاص ayna dareemin Mareykanku markuu soo ururiyo self examine arintaasi ma suurta galaysaa waa maya waxayna u suurta galin Israa'iil dacfiga iminka haystay weligeed ma soo helin diyaarna uma aha inay bari dhex ka talin karto awoodda maanta ma hayso arinta labaad bariga dhexe waxaa ka abuurmaya awoodo soo kacaya oo markii hore aanan sida ay isku dareysan yihiin aan isku dareysaneen oo ka mid tahay Pakistan iyo Sacuudiga iyo Turkiga waxaa la dareemay inay xulufo noqdeen si istiraatiiji ah u fikiraya oo si awaltoona ka duwan aniga kala adduunka soo biirtay waxa soo biiray dagaalkii Mareykanka iyo reer galbeedkii iyo Ruushka iyo Shiina inuu qaatay degdeg oo iminka Shiinaha iyo Ruushku oo Shiinuhu wuxuu u wadaartay Yurub Canada Rosary Canada wuxuu yiri adduunkii aan naqaano u dhamaaday mana sugayna dunidii hadda inaan sii sugno wana duc cusub la sameeyo mid khatarta wax way sheego dagaalkii labaad markuu dhamaaday waxaa la sameeyay nidaamka adduunka maanta xukuma oo jumhuriyadda qurumaha ka dhaxaysa abaka tahay
maxaa dhahdaa hogaamiyaha jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa security councilka xogayaha guud ee meeshaasi kiratish magaciis muxuu ahaa ninkaasi khudbadu akhriishada ma dhageysatay wuxuu yidhi dhageysta jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa way dhammaatay maraykan baa ku duntay wuxuu yidhi 6 bilood kadib mishaar ma bixin karayno 6 bilood kadib mishaar bixin karayno waa goorma 6 bilood kadib la sheegayo waa July waxaan galana waa February maanta marka July mishaar lama bixin karo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa boqolkiiba 26 jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa boqolkiiba 26 waxaa bixin jiray Maraykan adduunka kale inta kale isku tagay waxaa jira 66 urur oo caalami ah ayuu ka baxay 66 urur ayuu ka baxay Maraykan ka baxay oo kow iyo soddon ay yihiin ururo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa kamid ah uu ka baxay uu ka insixaabay dhaqaalihii ka goostay marka yaa sameeyey jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa Maraykan baa sameeyey yaa duminaya Maraykan duminaya badiilkii ma la diyaariyey jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa badiilka noqonaya waa maya waxaa la hayaa majlis uu bixiyey majliska nabadda oo soo imka dowladaha qorqoro kan 5 dowlad baa fiita lahama kan isagoo qodhata fiita yeelanaya soo Trump wado marka dunida waxaa la galay jawi madow oo meel loo socdo galin marka dowladihii yaraa waxay u ordayaan inay ku ordaan waddanka la dhahdo Shiinaha bal ka helaan shiinuhu muxuu si mataqaanaa cajiib shiinuhu sanadkii dhaweeyay 2020 waa sanadkii ugu adkaa ee Maraykanku uu saaray cunaqabatayn uu ku soo saaray taariifka adag uu saaray Soomaa shiinaha mataqaanaa inta uu macaashay waxa loo yaqaano al-faa'id tijari amba waxa loo yaqaano ribx tijari bayc mushtarka macaashka uu keenay shiinuhu mataqaanaa waa kii ugu sarreeyay adduunka imsoo keenay 1 trillion iyo 300 oo milyan oo dollar Maraykan maxaa ku dhacay ajzigii ugu weynaa 20 sano ugu dambeysay waa tahay bayc mushtara marka shiinihii ma hayo isagu nidaam ilbaxnimo oo lagu ordo بديل حضاري معها بديل فكري معها فكر معه بديل سياسي معها سياسة معه لكن هو بديل اقتصادي هي تكنولوجيا الدوك ما تنا بربع كنت يلعب ماده مركز هذه مادة لها دي مادة كان مادة بطل ليه واتاي ما شاء الله وقتك يعني عيرنا يا صحوي شقي runtii adduunka hadda saad sheegtay wuxuu galahayaa xaalad kale cusub dagaalkan Iran hadduu dhacana waxaa laga yaabaa in ay oga sii darto dagaalkani inuu dhaco iyo inuusan dhicin keebaa loo badinayaa okay mar hore labadiina waan wada sheegaysanay waxaa odhanayd boqolkiiba 50 iyo boqolkiiba 50 yaan siinay tuma iminka aniga waxay la tahay boqolkiiba 60 ma dhacayo boqolkiiba 40 u dhacaya hadduu dhacana boqolkiiba 80 dagaal degdeg weeyaan ee dagaal dheer ma dhacayo oo adag Maraykanku diyaar maaha mandiqaduna diyaar maaha waaqicuna diyaar maaha maxaa yeelay imika markii la baqay inuu Maraykanku inuu xadii weeraro xadii aan soo dhaafnay salaada fajr kadib aan weeraray abur subax hore maxaa joojiyay la isweydiiyay laba arrimood joojisay dowladda Iran waxay tiri hubka yagu meel kasti oo maraakiibta Maraykanku ay yaalaan waa arinta koowaad weerarayna bayab weerarabura taxta marma sawaariikh nabad ونهوس يالبا وديار وباشو كده ضنسا وحي مريكان برق دحي كيالا او دن منطقه او دن اولي تاسو ميد كود شيغان ميد لباد دولدي شينها تضبا الى 8 ديارات با كسو دحاي داران او كو وين او قادا انت الا مدنا روش الهيبادين hubka ay sideen muxuu ahaa balsweydii inta waa inta la arkay waxa la waxay sideen gantaalaha diyaaradaha hawada warintaas waa adag ciidamadii Iran ma aha gantaalaha ay doonto waa Ruush iyo Shiine
waxaana la ogyahay shiino inuu iminka sameeyey halka cirka wixii ugu dambeeyey inuu samaysto teknolojiya uu keenay meesha maxaa loo keenay dowladda iiraan waxay u tahay ruushka waa difaac dhul burburkeegu ruushka halis bay gelinaysaa walidaalika waxyaalada maanta sheegi doona waxaa ka mid ah in ruushku hadday iiraan dhacdo uu qabsanayaaba badh ruushka marka waa suu rabay in aag cusub oo dagaal uu maraykanka ku furmo suu Ukraine uga mashquulay isaguna ninka kaleeto ee jeeruna hubka ruushka labada hub halis ay keeneen oo cirka ah midda kaleeto teknolojiya waxaa la isticmaalayaa la baktiinayo la daminayo waxaa la daminaya mataqaanaa gamceedadii dul marayay iiraan teknolojiya baa la keenay lagu duminayo marka maraykanka uu sirdoonka baa yaraanaya marka hub badan baa waxaa soo galay teknolojiya kala soo galay saabu dib ugu dhigay dagaalkiisii waa tahay labada shay haddii dagaalka laga baaqsado marka yadani ugu jirtaa okay horta iiraan ma wax arkaasinayaa iiraan markay dagaal galayso ya nin mufakiro oo caraba oo reer Falastiin oo Iiraan ka shaqeeyay muddo badan wuxuu sheegay Iiraan waa dawla waaqiciya fi ahdafiha ثورية في أحلامها هذه كلمة مفيدة جدا ذاتك استراتيجية سميها وحولي مرك أي أهداف تردقيسو دولة إيران وواقعي وحس فرتقلك وحايا وكلا تقانا وحولي هذا الكيغا iyo kicinta dadkana waa tawrad ummadda saas ku hayso hanjabaada waa thawra fi ahlaamiha xulmi balada xulmi farisiya xulmi shiici xulmi caalami hawawi balada xabid maran balada taasi wuxuu waa thawri waa revolutionary laakiin waaqici weeyaan wax maxaa suurta galaya miiska ma keento wax miisku qaadi karin miiska hada dulugti wuxuu qaadi karin uu dumaya miiska waxay keentaa wixii socon karaya Iiraan waxaa la dhadaa waa dawla naajixa fi lmufaawadaat adduunkan aan ku noolahay cilmu lmufaawadaat marka la baranayo waxaa laga soo bartaa 3 meelood shiinaha iiraan israa'iil aad bay ugu dheerayaan maaha caadi waa qimam shiinu wuxuu hayaa 5,000 sano khibrada iiraanna waxay haysaa inta in ku dhow israa'iilna waxay haysaa shaydaannimo badan oo ay ka soo shaqaysay muddo marka waxay taqaanaa waxay dhahdeen marka ay reer Yurub la sheekaysanayaan reer Yurub oo caaraysan baa yimaada Iiraan waxay baxaan iyagu qoslaya marka mufaawadaadka wada heshiinta wada sheekaysiga discussionka waxay ku yihiin غير caadi ku yihiin walidaalika haddii miiska la fadhiisto miiska waxay ku haysaa waxay ku guulaysto walidaalika waxay tiri 4 arrimood ee Mareykanku isku soo daray anagu ma aqbalanay hal diyaar baa una ka shaqeysano maxay nuclearka sawaarikhna lagama hadli karo lagama hadli karo maarta nidaamka Iiraan lagama hadli karo cilaaqaadka adduunka la leenahay waxaas waa khadcas laakiin nuclearka hadli karnaa adduunka dhan wuxuu leeyahay nuclearka oo gashay la hadlo adduunku nuclearka cabsanayo anaga ma anaga soo wixii kale nuclearka laga hadlo marka waa xariifad way taqaanaa ayadana xirta cunaqabateynta laga qaado waxay leedahay waa inay noqoto wadaha sheekaysigu mid xadaariya oo ilbaxnimo ku jirto shuruud leh waaqiciyana waxa la soo ogol yahay oo ay ku jirto baaratay nidiya sinaan ay ku jirto dan ka tanaazulo adigana waxba aad wax miiska soo saarto marka taasi waa midaasi marka haday dhacdo nabad hadii fawada ay dhacaan waxay dan weyn ugu jirtaa Iiraan لأن إيران waxay taqaanaa inay mufaawadaadka waqti dheer galiso mufaawadaadkan imika waa la hubaa imika maanta waxaa la sheegay in Britole ay ka dhacayso magaalada Istanbul wafdigii Iiraan u baxayba horniciisa baa bilaabanaya weedkofna uu soo baxaya marka halkaas la isku arkaya waxay sarkeena maaha wada sheekaysigii ahaa aan tooska ahayn waa toos turkiga uu dhaxadinaya marka arintaas baa way karsamaysaa walidaalika khitaabku diskuurku khudbaduhu way ka soo dhaadhaceen kuleelkii qabowna ma gelin meel dhexe joogaan marka Mareykanku wuxuu isticmaalayaa hub iyo wuxuu isticmaalayaa maxaa karoogi iyo stick labada isticmaalaa budkiina uu sita
kaaroodkiina uu sita Ha. labadii oo isticmaalaya Mareykanku Iiraanna waxay isticmaalaysaa laba kale waxay isticmaalaysaa mid ay leedahay anigu shacratu Muawiya waa soo yarjiidaya ismoodo dhiibayo way isticmaalaysaa mid la waxay isticmaalaysaa aniga ma aha qofka dhimanaya mandiqadoo dhan baa dhimanaysa Israa'iil ugu horeyso waxa loo weeraray Israa'iil Iiraanna waa Israa'iil daraadeed Israa'iilna waa wada gubanayna bay aaminsantahay haddaan gubtaan idan oo gubanaysa iga harmayso waa tahay shaqi waxaan maraynaa gabagabadii dagaalkani hadduu dhaco iyo hadduusan dhicinba hadduu dhaco weliba mandaqada saameyn buu ku yeelanayaa صحيح نعم waxaa kaloo saameyn ku yeelanayaa adduunkii kale gaar ahaan quwadaha waaweyn sida ruushka iyo shiinaha marka saameynta uu ku yeelan karo iyo doorka ay ka ciyaari karaan muxuu noqon karayaa dagaalkaasi hadduu dhaco dagaalkaasi ha mandiqada iyo tan adduunkaba geopolitics dagaalka hadduu dhaco waxaa la filayaa dhowr arrimood oo waaweyn dunida ka dhacdo horta marka koobaad waxa weeyaan ma burburtay Iiraan ka soo qaad waa iftiraad yani ka soo qaad faradii in Iiraan la burburiyo laga adkaado Iiraan marka la burburto laba sideerahooda waaweyn ba dhacaya waxaa dhacaya dagaal sokeeye oo Iiraaniyiinta dhexdooda ka dhex mara Iiraan hubka yaalay hubkii Ciraaq haysatay shan laabkeed weyn baa yaalaha dagaalkaasi wuxuu geli doonaa khaliijka oo dhan waxaana bilaami doonaa dagaal sunna iyo shiica oo run ah waxaa labaad oo bilaami doona qaxootinimo aan caadi ahayn oo wadannada khaliijka la geli doono saddex waxaa bilaami doontaa in ay Turkiga iyo Sacuudigu ay gudagalaan inay iyada iyo Israa'iil iswaajahaan taasi waa hadday burburto weeyaan haddayna burburin Iiraan laga adkaan kari waayo maxaa dhacaya waxa soo socda kow Iiraan waxay sameynaysaa inay bariga dhexe u gubto ugu yaraan waxaa la yidhi waxaa dhici doonaa 3,500 oo saaruukh iyaa ka soo bixi doona meelo kala duwan oo ku socon doona meelo kala duwan 1,500 Israa'iil bay tagi doonaan majority qatar kuwait imaaraadka sacuudiga turkiga inta kale dhanka turkiga waxaa lagu qabtay mukhaabaraad Iiraan ay leedahay oo sawiraya meelaha in la soo weeraray tahay marka meelaha oo dhanba madaaficdu ku dhacaysa iyo waxaa kale oo weerar lagu qaadaya diyaarado iyo doonyaha bari yaala khaliijka waxaa la xidhayaa baddaas waxaa la xidhayaa iminka shalaytool darad waxaa laga ceshay badweynta Hindiya dowlad diyaarad ay markab ay leedahay dooni ay leedahay dowladda Ingiriiska oo mudamir ah ku wax mudamiya wal cili Iiraan baaris halka laga noqo wiido wax ku dhacda adaa masuulka way noqotay marka waxaa la xidhayaa meel maartay marinka Hormuz xidhmayso waxaa xidhmaya bariga maartay badda Carabta markay dhulkaasi xidhmaan batroolku wuxuu noqonayaa $200 barmiilku maashinka baa qaali noqonaya وكعيا بريان واحد نقاشي ذهب كينو قاري أو قياد إني قاري 5,000 ugu badneed buu gaaray ebid ولا جسوا عشرين كده عجيب هذا أفر كون يلح بقول له سويش warqaysa dib والله حب ما عادي ولعبة وحويان واحد عاي في طدي بقول يلا $200 بنقطة وقيادي حالة وعكسر قطة $60 واحد من يلعب مريكا عيارة دولار كيسو يوسي ديالك ودونه وفيلن صوص على قورتك ها سمين فاهميsid marka haduu dagaalkaasi uu dhaco waxa soo dhaw bariga ka dhacaya taasina maxay u keenaysaa adduunka dhanba u keenaysaa dhibaatada weyn waxa marka dhibaatadaasi ay ku dhici doontaa Shiinaha dowladda labaad u kaybsada gaaska weyn Iiraan Sacuudiguna waa dowladda koowaad u kaybsado Venezuela dowladda saddex waaya Shiinaha وبرجع دخلوا بعد كده. شينا سامين بام بيكو يالني. يوكو يالني صح. مريكا وكبد بادي أسوأ. وده غاز كيسير ما هيستاه. غاز كيف فريزون اللي عنده كوهيا. أنت لو ربو. كان ذا أودو ذا. أودو ذا. ما كان يسقى مريكا كي أو حال شيء هاي. غاز كيسي. لكن غاز كدوري السرقة عيوة تأثير الناس على مريكا. قصب. دقالها دوري واسكو حرية. وجلوباليزيشن. واسكو حرية. مركا دبعت الدقالو وين بعد يدون ده.
arinta ugu dambaysa waxa weeyaan dagaalka haddii Iiraan laga adkaan waayo waxaa dhacaya in Israa'iil ay u bilaamato inay iscunto cadowgeygii ay dumi lahayd waa laga adkaa uu soo taagaya waxaa bilaamay marxaladu ta'akulkii Israa'iil ee labaad yaa bilaamaya cumrigeygii loo qabanayay ma dhaafi doontaa 2020 iyo 30 iyo 30 ayaa sii xaqiiqsamaya هذا تاسبع أيضا شكرا أدبا محسنته جزاك الله خير وياك intaasi ayaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii aynu ku qaada dhigaynay dagaalada la filayo lagana cabsi qabo in ay dib uga qarxaan bariga dhexe gaar ahaan wadanka Mareykanka iyo Iiraan iyo saameynta ay ku yeelanayso mantiqada iyo dunidaba guud ahaan barnaamijka waxaa noo qaada dhigay Cabdiraxmaan Bashiir oo uga barteen arrimahaas inuu mar walba ka hadlo waxaan idin la socodsiinaa anigoo Cabdirasaaq Sheekh Mursal intaan barnaamijkan mid la mid ah dib hawada ugu kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidoo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.